xarunta cusbitaalka caalamiga ee Alxayaad ee magaalada Boorama waxaa maanta ka dhacday munaasabad buugaag lagu guddoonsiinayay jaamacadaha Camuud iyo Eelo ee ku yaala gudaha magaaladan Boorama. Buugaagtan oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ardayda wax ka barta jaamacadaha Camuud iyo Eelo waxaa soo dhiibtay hay'adda American Relief Agency qaybteeda qaabilsan geeskan Afrika oo xarunteedu ay tahay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, waxaana wakiil ka ahaa Professor Maxamed Cilmi Fariid oo kamid ah madaxda cusbitaalka Alxayaad ee caalamiga ah. wuxuuna professorkan ka hadlay madashan waxa uu ka sheekeeyay buugaagtan iyo waxa ay ka kooban tahay. buugaadaasi waxa soo diray oo isla kaashaday laba hay'adood oo midkood la yiraahdo Life for Relief and Development oo xarunteedu tahay magaalada Detroit ee USA. ta kalena waxa la yiraahdaa magaceeda American Agency for Relief in the Horn of Africa oo iyaduna xarunteedu tahay Minneapolis, Minnesota. araha waxay halkan ku leedahay xafiis labadan jaamacadood ee Camuud iyo Eelo. sidaas darteed ayaan u sameynay xafladan oo ku wareejinayno buugaadii labada jaamacadood oo ay fadhiyaan madaxdoodii. sidoo kale madax ka kala socota jaamacadaha Camuud iyo Eelo ayaa waxa ay ugu mahadceliyeen hay'adan buugaagtan ay soo gaarsiisay. I would like also to thank ARAHA, American Relief Agency for Relief of Horn Africa, which has collaborated with with Life. I would say thank you very much. Strategic management, human resource, يعني لما سو كوبي كرو قيبه ka koobnaayeen laakiin nooc kasta oo loo baahnay way ku jireen laakiin soo oran mayna intan way nagu filnayd laakiin waxa leeyahay intan waxay hayd wax qayb ahaan bay xal ka noqon doontaa buugta jaamacada loo baahnaa. qaar kamid ah salaadiinta iyo waxgaradkii kulankan ka qayb galay ayaa iyaguna waxa ay ka mahadceliyeen buugaagtan la guddoonsiiyay jaamacadaha Eelo iyo Camuud ee Boorama si ay ugu faa'iideystaan ardayda wax ka barta jaamacadahan ee ka kala yimaada mandiqadan geeska Afrika. Cabdi Fataax Axmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.